waxay xisbiga kale u cadeeyay khilaaf baa la dhashay khilaaf baa raadiyay waxa la kulmiyay khilaaf baa hore u mariyay doodii buu ku hormaray wuu ku adkaaday talada fiicneed buu ku helay markuu raygiisu keenay waxa ka liita rag wada hadal waayay ee aamusan ee isku xisbiga ee ama qof daba socda maanta la warahay ayaan ka fiicanaanay anagu runtii waxaanu maanta go'aansanay markaanu aragnay inaan la isku joojinayn markaanu aragnay inaan tala la kala qaadanayn markaanu aragnay inaan la isku baahnayn markaanu aragnay in la leeyahay dadka murashaxiinta iyo codba uma baahnee sidii la doona hadhow loo soo saari karayaa la leeyahay markaanu aragnay in damacayagii iyo rabitaankayagii lagu hor joogsanayo jujuub iyo qasab iyo aftuub waxaanu go'aansanay inaanan ka qaybgelin kulanka ka dhici doona Mansoor 10 bisha November waxaanu isku daynay in shirkaasi la qurxiyo oo la isku joojiyo oo wada tashi iyo walaaltinimo ay wax ku dhacaan nasiib darro way suurtageli weyday aad iyo aad baan uga xunahay naga xisbiga kulmay waa xisbigayagii asaasayaasha xisbigan aanu nahay ragga maanta xisbigan isku haynaa way nooga dambeeyeen xisbiga xilliga soo galeen ka sheegan maynee tartan aan wada galaana laga diidan yahay taasina runtii waxaan u aragnaa inay mid qaldan tahay marka shirkayga horta hadii ilaahay yiraahdo saadambe salaasada aroorta hore wuxuu ka qabsoomi doonaa halka loogu talagalay waanu hawshiisana waa u dhantaa oo dhameystay dabcan shir waliba oo inta leeg khilaafkiisa wari khilaaf waa noogolay laakiin si loo xaliyaa noqon dalka dhibaato weyn ma soo adii ma la qaadayna meel rag u tartamay ma artan yara waa dhab waa ka dalka galgala wada hadal hayseen laakiin waxa ku bushaareeyaa shirkii inuu taa qabsoomayo nabad ku dhamaanayo waxa iyaga inta badan dhamaysanay wixii noo haray wali sii taagana oo xal noqon doono waxa naga go'aana inaan ka qayb gelin kulanka 10 bisha November loo qoondeeyay anagoo murashaxiinta taageerayaashayadii golaha dhexe ahaa oo aqlabiyada gudidii fulinto aqlabiyada hogaankii xisbiga oo taleenaya waabeeya hogaankii shirgudoonkii golaha wakiilada oo Dr. Ali Yusuf iyo walaalkii Baasha Maxamed Faaraxa intuba hawsha wanaagla socdaan waxna la socda dhamaanba xubnihii firfircoona ee xisbigan iyo xukuumadanba soo gaarsiiyay halkay maanta joogto waxna nasiib daraha hadii intaas oo dhan maanta loo arko inaanay qiimo lahayn wasaaradda iskumay casilin si fudude waxay arkeen wax dalka yaala annaga maanta diidan inaan shirka ka qayb galaana waxaan arkaynaa wax dalka maanta yaal sidaan wadanigiisu way looyay kulmiiba ka sheeganay shirkiisa xisbi kale waa looyay goorma shirkiisa qabsanaysa xagaa u socotaa hebel miiba war annaga taayada dhamaysan doonee bartiina la rafta horta marka hore ay 8 tahay oo maalin axada ah waxaan ka xumaa inaan halka ka sheego inaanu maxaan ku rahay shirkii u aftuubnaa labada musharax inaanan ka qayb gelin hadii libadkii leeyahay sababtoo ah intii mudaaba waxaan ugu ku celcelinayn oo ugu baaqayn oo dadka u sheegayn oo nimanka madax xisbiga aan u sheegayn inuu shirku afduubay yahay oo aanu dhexdhexaad ahayn oo hadii leeyahay laba musharax oo qura gacanta ugu jiro oo anagoo kala ah arrinka markii sheekh iyo shariifba loogu ergatagay ee madaxtooyada la tagay ee meel walba la tagay ee cid walba tagtay ka ergeysay tiri maxaan ku raayay haloo joojiyo xusbigii rag waaweyn oo badan oo dad caynkaas ayaa maqanay loo joojiyo markii la yiri ee laga yeeli waayay maanta waxaan go'aansanay inaanan shirkaas maxaan ku raayay ama kulankaas maxaan ku raayay kooxda yari ay wadato inaanan ka qayb gelin waanu ka xunnahay maanta tareenkii inta badan aan soo saarayn ee kulmiye inaanu halka kaga digno taasi ma waanu ka tagnaa laakiin shirka ka qayb gelmayno taasi waa taawiye dhaqanka kulmiye waxa kamid ahaan jirtay in la isu joojo oo la isu weyn sanadkii berigii hore ee musharaxa Axmed Maxamed Maxamuud loo dooranayay Muuse Biixi laftiisa iyo hadii libadkii leeyahay ninkii dhintay Allahu naxariistay loo jiray Kayse Xasan Cige way ka dudeen shirkayna ka qayb galaan Hargeysa ayay ku hadheen aniga ayaa u imi maalin jimcaha iyadoo ah waxaan ku yiri waar xubno muhiimaatiina haddii ka hadhaan shirka waynu jabaynaaye maxaa uga qayb gali weydeen waxay igu yiraahdeen waa marxaati madoon arrinkaas waxay igu yiraahdeen shirkaas haddii libada waxba kama ogin
sidaa aan uga cabanayno kale uga cawdeen dabeedna waxaa ku yidhi war haddii aanu idiin joojino ka warrama ma imanaysaan haa bay yidhaaheen galab jimca inaa xustaan kala moodaya maalin sabti ayuu bilaabanayay maalintii jimca ahayd ayaan halkaa ka baxay aniga nin kaloo maxamed daahir khayra la yidhaaho waa garan doontaane dabeedna halkaasaanu ka baxnay subaxii shirkii oo hareeraa la dul fadhiyo oo la doonayo in la furo oo ay 9kii subaxnimo joogto ayaanu nimankii baan war ka signaa way imanayaan haddii libadad kale shirkaa loo joojo waa loo joojay 2 xubnood oo quray haayeen waa loo joojay waa la naga yeelay waanu la hadalnay way yimaadeen sidii bay uga qayb galeen habeenkaas subaxii oo kale maalintii sabtidii waa la joojay habeenkii maxaan ku dhahay waaga ayaa isku kaay bariyay saanu arisanay dabadna markii aan heshiinay subaxii baan ku galnay waxaan leeyahay muuse waa kaanu ergeynay imkana asaga erge loogu tagaya waxaan leeyahay walaalada iyo intii erge loo diray sheekh iyo shariif waan u diray dhaqanka xusbigu sidaas uu ahaa wax ka gadisan ayaa naga soo baxay de waxaanu go'aansanay haddii labadii leeyahay inaanu ka degno arrinkiisu inta ku dhammaan maayo consequences ka xun ayaa arrinkaasi horgalaya waa lagu la socdaa madaxtooyadii aan lahayn mustanbeed bay u noqonaysaana ayadaaba maxaan ku dhahay arrinkii mid roorteynaysa haddii labadii waa laga soo aayo waayay de wasalaam calaykum taasaan ku soo koobiyay arrinkiisu inta ku dhammaan maayo consequences ka xun ayaa arrinkaasi horgalaya waa lagu la socdaa